kulan wacan wanaagsan lahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotaay waa mar kale iyo barnaamijkeeni aynu ku eegnay xogihii ugu dambeeyay dalka iyo daafaha caalamka qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan hadduu allaha uu dilo ogolaadana waxaa kamid ah SSC oo qabtay shakhsiyaad lagu tuhunsan yahay maxay yihiin dadkan ay qabteen xoogga SSC Khaatumo xogayaan idinkaga hayaa dhanka kale Turkiga oo ka soo saaray qarxii ka dhacay Ankara iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda oo go'aan laga dareemayo SSC oo ciidamo tiro badan soo dhoobtay aaga qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan ayaan dul istaagi doonaa hadduu allaha uu dilo ogolaado soo dhawaada muuqaalka sii sheegay oo daaqadaha ka tuura meel fogna nala gaarsiiya ku mahadsanidin aynu ku bilownay ciidamada SSC Khaatumo gaar ahaan kuwa xasilinta ee magaalada Laascaanood ayaa howlgallo kala duwan ka sameeyay xarunta gobolka Sool ee Laascaanood howlgalladan oo ah kuwa lagu xaqiijinayo amniga magaalada Laascaanood ayaa waxay ciidanka ku soo qabteen dad dhowra shakhsiyaadkan ayaa ku eedeysan inaysan u hoggaansamin nidaamka dawliga ah ee kol hore Laascaanood looga dhawaaqay sida ay sheegeen saraakiisha amniga SSC saraakiisha ciidanka ayaa sidoo kale waxay sheegeen in shakhsiyaadka ay ciidanka ku qabteen howlgalladii u dambeeyay loo gudbin doono hay'adaha garsoorka ee maamulkaasi sharciga ayaa la horgeyn doonaa waxaan go'aan ka gaaraya garsoorka ayay u sheegeen warbaahinta maxalliga arrintan ayaa imanaysa xilli ciidanka la magac baxay xasilinta ee Laascaanood ay maalmihii dambe wadeen howlgallo culus kuwaasi oo qoryaha looga xareeyay qaar ka mid ah dhalinyarada Laascaanood oo qoryahooda la dhex mariyay magaalada si kastaba markii xoogga SSC ka adkaadeen ciidamada Somaliland ayaa waxaa Laascaanood lagu dhisay maamul la yiraahdo Khaatumo kaasoo doonaya in xubin uu ka noqdo maamulada xubinta ka dowladda federaalka Soomaaliya balse weli diidmo adag iyo gacan ka hadal ayay kala kulmayaan maamulka Somaliland haddaba ciidamada SSC Khaatumo ayaa haatan waxay ka wadaan gudaha Laascaanood howlgallo amni xaqiijina kuwaasi oo dhammaan lagu soo qabanaya dhalinyarada hubka sidata sida loo qorsheeyay magaalada Laascaanood ayaa waxaa laga dimacsan yahay inay noqoto magaalada ugu nabadda badan maadaama haatan muddo 9 bilood ay dagaal arkaysay sidoo kalena ay ku dhacayeen madaafiic kaga imaanaya dhankaasi iyo Somaliland sidoo kale xoogga SSC Khaatumo ayaa haatan waxay isku diyaarinayaan inay noqdaan maamul goboleed gaar ah sida horey bay u soo dhisteen maamul hogaamiye Cabdiqaadir Firiye oo haatan ku wajahan magaalada Muqdisho caasimadda dalka dhanka kale wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkiga ayaa sheegtay in weerar lala beegsaday meel u dhow xarunta baarlamaanka dalkaasi ee magaalada Ankara hadayna ku dhaawacmeen 2 askari oo boolis ah qaraxa oo ahaa mid xooggan oo u daba socday hula aad u xooggan ayaa laga maqlay meel dhowr kiiloomitir u jirta goobta uu weerarku ka dhacay wasaaradda ayaa sheegtay in 2 qof ee weerarka qaaday ay 9:00 subaxnimo ee waqtiga dalkaasi gaari ku yimaadeen afafka hore ee iridda laga galo agaasinka guud ee amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha ayna qaadeen urbamba oo ay u yeertay mid argagixisa nin ka mid ah argagixisada ayaa isqarxiyay kan kalena waa la toogtay ayay wasaaraddu ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay baraha bulshada iyadoo intaa ku dartay in 2 askari ee dhaawacyo fudud ka soo gaareen goobta la beegsaday ayaa martigelisa dhowr wasaaradood iyo baarlamaanka Turkiga kaasi oo lagu waday inuu maanta kala fadhigiisa ku bilaabo khudbadda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan sida ay sheegeen warbaahinta Turkiga ma jirin ilaa hadda ay sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi balse ciidamada ammaanka ee Turkiga ayaa haatan waxay wadaan baaritaano dheeri ah oo ku aadan idii falalkaasi ka geysatay gudaha wasaaradda dhanka kale wararka naga soo gaariyay aago alaaba isku hayaan maamulka Somaliland iyo ciidanka SSC Khaatumo ayaa waxay sheegayaan in xaalad kacsanaan laga dareemayo goobtaas oo ay maanta ku dagaalameen xoogga SSC Khaatumo iyo kuwa maamulka Somaliland
warar hordhaca oo aynu helayno ayaa waxay sheegayaan in haatan ciidamo tiro badan ay xoogga SSC soo dhoobeen aagga ay isku hayaan maamulka Somaliland waxaana taasi loo gol leeyahay in la xoojiyo ciidamada jiidda hore ee dagaalka ku sugan. Dagaalkii maanta ayaa waxa uu qaatay saacado tiro badan waxaana la isdhaafsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo halkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dhanka SSC Khaatumo ayaa iyadu waxay sheegtay inay guul maanta ka soo heshay dagaalkii ay la galeen ciidanka maamulka Somaliland iyagoo horey baraha bulshada u soo bandhigay ciidamo gaaraya 2500 oo askari kuwaasi oo ay iska soo dhiibay xoogga SSC kana soo baxay maamulka Somaliland. haddaba ma markii ugu horeysay oo sidan oo kala ay ciidamada Somaliland isku soo dhiibaan soona galaan kuwa SSC Khaatumo iyagoo siyaabo kala duwan u aaneeya ka soo baxooda. qaar ayaa waxay sheegeen inay ka dudsan yihiin sidoo kalena ka careysan yihiin sida uu wax u maamulayo maamulka Somaliland halka kuwa kalena ay si toos ah uga soo baxeen maamulkaasi iyagoo sheegay inay la midoobeen dadkoodii iyo dalkoodii intuba. sidoo kale ciidamo qaar ah ayaa waxaa jiro taabacsan in gooni goosadkaasi uusan ka shaqeyn sidoo kalena dalka aan la kala goyn waana sababta keentay in ciidan walba oo halkaasi maamulka Somaliland uu keenay qaar ka soo baxaan iyagoo ka soo horjeeda qadadaasi gooni u istaagay in la dhibaateeyo dadka reer Laascaanood oo waxba galabsan. haddaba dagaaladan ayaa ku soo aadayo iyadoo maanta madaxweynaha maamulka SSC Khaatumo uu safar ugu baxay dhanka magaalada Muqdisho isagoo halkaasi kula kulmay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. hogaamiye Firdhiye ayaa waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa madaxda dowladda federaalka isagoo ka kaashanaya qaabkee loo maamulkaasi ay soo dhiseen ee cusub loo horumarin lahaa iyo dadka reer Laascaanood waxay ku lahaayeen sidoo kalena saami qaybsiga dowladda federaalka ay xaqooda helaan. Firdhiye ayaa horey wacd ugu maray inuu garab siinayo sidoo kalena mas'uuliyadda weyn ee haatan loo igmaday loona xilsaaray inuu noqdo madaxweynaha SSC Khaatumo uu sidii la rabay uga soo baxayo hadduu saas markaasi u suurtageli waayana saami qaybsiga iyo waxay ku lahaayeen dowladda federaalka oo soo dhicinayo waa sida ballanka uu ku galay hogaamiye Firdhiye. haddaba guud ahaan magaalada Laascaanood ayaa waxaa ka socda horumar ballaaran iyadoo saacadihii la soo dhaafay magaalada laga nadiifinayay qashinka iyo waxa uu ka tagay maamulka Muuse Biixi Cabdi hogaamiyahoodana haatan uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho sidoo kalena uu kulamo la yeelan doono madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. dhanka oogay furmaha dagaalkana waxay heesayaan maamulka Somaliland oo xaggana ciidamo dheeraad ayaa loo sii gudbinayaa si ay u taakuleeyaan dhankaasna ciidamo ayaa ka soo baxaya iyagoo garab siinaya xoogga SSC Khaatumo garabkii Muuse Biixina soo faarujinayo. dadal muuqaalkeen intaasi ayuu ku eegyahay muuqaalkan muuqaal xigay intaan ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.